Dagaalyahanada Taliban ayaa soo ifbaxay horaantii sanadii 1990kii waxayna markii hore ka bilowdeen waqooyiga Pakistan. Waxa ay kooxdan soo ifbaxday kadib markii uu dhamaaday dagaalkii Midowgii Soviet ee dalka Afghanistan. Inta badan xubnaha ka tirsan Taliban waxay u badan yihiin qowmiyadda Pashtun oo ah qowmiyadda ugu tirada badan Afghanistan. Waxaa la rumaysan yahay in markii ugu horeysay ay hooshooda bilaabayeen ee dhaqaale xoog ka heli jireen Saudi Arabia. Markii Afghanistan la wareegeen, waxay kooxda Taliban dalkaas ku soo rogeen ku dhaqanka diinta Islaamka. Intii ay xukumayeen dalka Afghanistan, waxay kooxda Taliban mamnuucday dhageysiga heesaha, daawashada aflaanta, iyo in gabdhaha da'doodu ay tahay 10 sano iyo kuwa ka weynba iskuulada aadaan. Dalalkii aqoonsanaa intii ay xukunka hayeen Taliban waxaa ka mid ah Pakistan, Saudi Arabia, iyo Imaaraadka Carabta. Ururka Taliban waxaa hogaamiya Hibatullah Akhuna Zada oo hogaanka ururka Taliban la wareegay 26 May 2016 markaas oo golaha shuurada ee xarakada ay xilkaas u magacaabeen. Waxa uu bedelay hogaamiyihii hore ee ururka Aqdar Maxamed Mansuur kaasoo lagu dilay weerar dhanka cirka ah 26 May 2016 kaasoo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ameerikaanka. Hibatullah wuxuu dhashay 19 Oktoobar sanadii 1967 sida lagu sheegay taariikh lagu shaaciyay barta internetka ee rasmiga ah ee ururka Taliban. Wuxuu ku dhashay degmada Bajwai ee gobolka Kandahar. Waxa uuna ka soo jeedaa qowmiyadda ugu tirada badan Afghanistan ee Pashtun. Waxaa la rumaysan yahay inuu ka mid yahay xubnihii aasaasay xarakada Taliban, waxaana kaaliye dhow u ahaa aasaasihii ururkaas Mullah Maxamed Cumar. Marka aynu eegno awoodda militari ee kooxda Taliban, lama hayo tiro sax ah oo ku saabsan awoodda militari ee kooxdan, balse khubaro u kurgashay ayaa ku qiyaastay ku dhawaad 150,000 oo dagaalamayaal, taasoo 50% ka yar tirada militariga ee Afghanistan ee meesha laga saaray. Dagaalyahanada Taliban ayaa u badan qabiilka lagu magacaabo Pashtun, balse sidoo kale waxaa jiro dagaalyahano kale oo ka soo jeeda qabaa'ilo kale iyo weliba dalal kale oo muslimiin ah. Kooxda Taliban ayaa u dhisan si ka duwan ururada kale ee Islaamiga ah, isla markaana waxay leeyihiin hoggaan nidaamsan. Waxaa inta badan kooxda Taliban dhanka militariga hogaamiya abaanduuliyaal la soo dagaalamay Midowgii Soviet xilliyadii 90-meeyadii. Abaanduuliyaashan waxay khibrad u leeyihiin sida loo weeraro iyo dhinacyada ugu sahlan ee laga weeraro magaalooyinka muhiimka ah ee dalka Afghanistan. Dhanka awoodooda, marka loo barbardhigo xilligii ay xukunka hayeen 2001 aad ayay uga hooseysaa haatan. Dagaalyahanada Taliban ayaa la sheegaa in waxyaabaha u sahlan in ay dagaalada ku guuleystaan ay ka mid tahay in ay aad u yaqaanaan sida loogu dagaalamo dhulka hawdka ah iyo weliba buuraleyda. Dagaalyahanada Taliban ayaa waxaa intooda badan ay ku hubeysan yihiin hubka fudud, balse sidoo kale waxaa jira in ay haystaan hub culus sida taangiyada oo kale, balse lama oga tiro sax ah oo saanadooda militari ah.